الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، waxay khudbadeena ku saabsan tahay fawaa'id alxadiith can alyawm alaakhir, arkaan islaamka rukni ka mid ah oo ah rumaynta aakhiro iyo ka sheekaynteeda iyo xusuusinta la isxusuusiyo maalinkaa isagaa inaad rumaysan tahay u camal falayso xusuusan tahay. faa'iidooyin 7 ah oo ku jira insturtaag insha Allah. maalinkaa rumayntiisa maxaa faa'iidaha ku jira? in la isku wacdiyo inuu qalbigaaga ku jiro oo aanad ilaawin inaad xusuusan tahay. faa'iidada u horeysa waxa weeye yuxyi fi nufuusi almu'miniin macaani as-sabr wal-ridaa wal-ihtisaab. qofku markuu aakhiro rumaysan ku qanacsan yahay ee geedi u yahay, waxa uu aaminsan yahay sabirka, wixii dhacdana ilaahay uu ajri kaga doonayaa. marka isku mid ma aha qofka aakhiro rumaysan iyo qofka aan aakhiriliiska ugu jirin imtixaanaadka ka dhacaya adduunyada. aad bay u kala duwan yihiin. waxaa buu isku dayayaa qofkan ashahaadanaya islaamka ahay dhibaatada adduunka ku soo marta inuu ka macaasho ka faa'iidaysto. sidoo axadu aclaami salaf lahaa, macaashka iyo ajrigaanu ka helayno camalka saalixa naguma fille, musiibadana waa ka macaashnaa. ilaahay baa yidhi innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab. dadka sabree dhibka adduunyada ila waa meel imtixaane, dhinac walba qofka waa laga imtixaanaya. qofka ku sabraa ilaahay sabirkooda wuu dhammaystirayaaba, ajrigooda wuu dhammaystirayaaba ilaahay subxaana wa tacaala. nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay qofka muslimka ahi dhib iyo dheefba wixii adduunka soo mara wuu ka macaashaya. cajaban liamri lmu'min, xadiidkii saxiixa ina amrahu kullahu khayr. wax waloo soo maraba adduunka wuu ka faa'idaysanayaa. dhibka wuu ku sabraa, ajri buu u yahay. nicmada wuu ku mahadnaqa, ajri buu u yahay. walaysa dalika ilaa lilmu'min. arrintaa gaalkuma lehe, mu'minkunbaa leh. waana waxa uu ku faa'iiday rumayntu aakhiro rumaysan iyo u sii socdo. laakiin asxaabu dunya wa cubaatu shahawaati idaa usiibuu bibalaa asaabahum aljazacu walhalac. ilma adduunyo nimanka la ydhaa gaalada ah iyo imaanlaawayaasha wax yar uma adkaystaan, way waalanaysaa adduunyadu markay wax yar arkaan. waa adiga arkaya oo nimankii lahaa nuclear baanu haysanaa, waxa qaxiye ilimi qabati, waxaan ishu qabanayno virus yar ayaa qaxiyey. marka wax kale iyagu arkayaan ma jiro aan ahayn adduunkan wax ka dambeeya arkayaan ma jiro. wax aada u sii cajiib badan. inagu mararka qaarkood waxaaba laga yaaba dadku haddii wax la sheego inay raashinka iyo biyaha iyo waxaa kuyi u galaan, iyadoo taasina aanay sax ahayn oo dee kakanaantii ay ka mid tahy. arsaaqadii ilaahay waa taallaa, wax dhiboo jiraa ma jiro. markaa dee halacan iyo argagaxa faraha badani waa dhaqanka shisheeyaha. iyagu taa way sii dhaafeen. waxaan arkayay maraykanko kuyuu loogu jiro meelaha qaarkood in hub la iibsado. bal adigu cajaa'ibkaa eg. hubka maxaa loo iibsanaya? toloma fayraskaa lagu laynayaa? maya, waxay ku leeyihiin ila hubku waa xoro, waa laga iibsadaa dukaamada. waxay ku leeyihiin haddii fawdadaasi dhacdo oo la isboobo dadka saanu isaga celin lahay. acsaabtooda kacsani waa taa kakanaanta iyo iska celinta. faa'iidooyinka waxaa ka mid a rumaynta maalintaa la rumeeya ama xusidaynu xusayno ee inaan ilaaweyn. yuxyi fi nufuusi macaani alcafi can idaalim wa qabuuli alacdaar. waxay sababaysaa dadku inay iscafiyaan, cudurdaarka iska aqbalaan, cadiyad iyo deeqda isugu roonaadaan, isu tanaasulaan. waayo qofku wuxuu leeyahay wixii aad dadka u dhaaftay iyo waxaad ila agtiisa dhigataba ilaahay baa ku siin doona, aakhiraa soo socoto. saasaa ilaahay uu ku ammaanay dadka mu'miniinta, innamaa nudcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura inaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamdariira fawaqaahum allahu shara dalika alyowm walaqaahum nadratan wa suruura. waa dadkii muslimiinta ahaa oo ummaddii u samafalaya oo aakhira ilaahay u abaal dhiganaya inay ilaahay uu halkaa abaal mariyo.
faa'iidada saddexaad waxa weeyaan rumaynta maalintaa la rumeeyo ama aynu isxusuusinayno qofku markuu maalinkaa niyadiisa ay ku jirto laa yatacallaqu bidunya bal yazhadu fiiha adduunyada wuu ku dhex saahidayaa macnaha adduunyadii kama tegayo ma tuurayo laakiin wuu ku dhex saahidayaa oo iska shaqaysanayaa waxay tahayna wuu ogi dadka qaarkood siday u rumaysan yihiin adduunyada uma aaminsano qofkan uma rumaysna inuu safar yahay buu ogi oo uu ka sahay qaadanaya dadka qaar baa liqsan oo cabsan oo u nool nabigu sala allahu calayhi wasalam taa isagoo inoogu waaninaya farqiga u dhexeeya nicmada adduunya iyo ta aakhiro waxa uu yidhi xadiidkii saxiixa ahaa muslim ku sugnaa min xadiidi shadaad mustawrid bnu shadaad ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أصبعكم في إلا ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع موقالك الدنيا نعمة يدو waxay ka dhigan tahay marka la barbar dhigan nicmada aakhiro mid idin kamida oo badda farta galiyay bal ha eega waxay kala soo noqoto nicmada adduunyada waxay u dhigantaa biyaha badweynteed farta galis inta ay fartu soo qaaday iyo badaha biyaha ku jira badaha faraha badan saasay isaga nicmada aakhirana waxay ka dhigan tahay badweyntaas oo kale waxa adduunyada lagu hayaana waa inta qoyaanka fartu soo qaaday asxaabtiis nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka dhaqdhaqaya dhibka badana haysta ee godka ay qodayeen ay rafaadsanaayeen wuxuu ilowsiinayay dhibaatada adduunyada wuxuu lahaa allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira faqfir ilansaara walmuhaajira ilaahow nolole waa taa jannada eh ilaahow dadkan ila dadaalaya dembiga u dhaaf waxaa afraadoo faa'iidooyinka ka mida yudahiru alquluuba min alxasadi waalfurqati waalikhtilaaf dadku waxay isku dayayaan kol hadday aakhiro rumaysan yihiin oona ilowsanayn inay qalbiga iska safaystaan oo ay ogaadaan meelaha ilaahay uu ka eegayo halka u muhiimsan inuu qalbigay ilaahay baa wuxu uhi yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalinkaa waxa uu anfacaya qofka ilaahay la hortaga qalbi caafimaad qaba marka qofku waxyaabuu ka faa'iidaya waxaa ka mida naftiisa nasanaysa culayskii ka saaraa duruufaha iyo dhibka dadka kaga imanaya uu fudaysanayaa xasadkii iyo xiqdigiibu iska yaraynaya laabtiisoo caafimaadinaya faa'iidooyinka waxaa ka mid a dikru lyowmi alaakhir yuhadid aldalama liyakufuu wa yucazi almadluumiin liyaskunuu maalinkaa xusida la xusayaa dadka daalimiinta waxaa looga jeedaa inuu dib u joojiyo marka lagu waaniyo aada looga warramay waxa jira loo soo bandhigayo waayaha adaga halkaa yaalla bal inuu cabsado wayartadic oo daalinku xumaanta uu iska daayo dadka kale la dulmiyeyna tasliya sabirsiin bay u tahayoo waxay ku qanacsan yihiin dee goobta maxkamadda ilaahay labadii neef laysu qisaasayo ridii geeska lahayd iyo tii aan geeska lahayn kol haddii leeya waa la ysu qisaasayaa walle halkaa waxba lagaa dhaafi maayo buu qofku leeyahy oo uu naftiisu markaa way degaysa walaa taxsabana allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi اlabsaar ila aakhir اlaayaat ha u malaynin buu ilaahay yidhi daalimiintu waxay samaynayaan inuu ilaahay ilowsan yahay uu daba taagayo maalinkaasuu la sugayaa faa'iidooyinka waxaa ka mid ah aliimaanu biاlyowmi alaakhir wa tadakuruh yajcalu lmuslima lahu hadaf yasbu ilayh waa ujeeddo uu qofku higsanayo iyo meel hankiisu u weyn yahay oo eegayo inuu sugayo inuu ilaahay kula kulmo oo uu ku arko kaga raali noqdo oo uu sugayo inuu kula saaxiibo walaalihiisii qiimaha badnaa alambiyaa waashuhadaa waalsaalixuun khalqigii fiicfiicnaa inuu halkaa kula rafiiqo marka adduunyada nicmo kastuu qofku ku haysta iyo badhaadho kasta xabsiba uti addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafir waa siduu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam adduunyada waa xabsiga qofka muuminka iyo jannada gaalka macnaa dadka ashahaadanaya islaamkii barwaaqo iyo badhaadhaha ku haystaan laakiin khayrka u dambeeya marka la eego tanaa xabsi iska ah gaalkuna halkan dhib kasta oo kula kulma xagga balaayada ka dambaysa marka loo eego tanaa janno waa liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada ilaahay baa wuxuu leeyahy jannana way leeyihin awliyada ilaahay dheeraadna way leeyihin oo ilaahay aragtidiisa ah marka hadaf
وإيغانيو وهنوي وهو القليويان مالنكا إساقا ومن يدع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق إلا للرفيق كوا أولا يكسنبه هكسنا يا قفقاس waxaa toddobaadoo faa'iidooyinka ka mida dikru lyowmi alaakhir yajcalu ahla alghaflati yantabihuuna min ghaflatihim inaad maalintaa xusuusnaato ama lagu xusuusiyo waxay faa'iido ka tahay inaad ka caafimaado cudurka dilaaga ah ibliisku dadka uu u soo waarido qalbigoodana uu geliyo kula dadaalo oo alghafla ghafladu waxa weeyaan qofkan aragti dheer lahayn qofka wax ku fooraraan qofka oo xigmadii iyo sirtii loo abuuriye meeshu ka yimi halku ku socday halku jooga aan kala garanaynin waa qof aan hor iyo daba kala lahayn qaafil dadku waa qofna waa daakiro oo xusuusan yahay oo aragtiisu way dheerto maadi iyo xaadir iyo mustaqbal meel uu marayo uu iskala garanaya halku ka yimi halku joogay halku socdo qofna waxa soo dhan waa ka dhacsan yahay oo tanay ugu eegto halkaas uu ordaya quraankuna aayada aad u badan oo dhowr iyo toban ka badan buu erayga qafladda ku xusuusiyaa dadka oo Ilaahay uu ku baraarujiyaa subhanahu wa ta'ala dadka aan diinta lahayn markuu Ilaahay ka warramay wuxuu yaclamuuna dhaahiran min alxayaati dunya wa hum 'an al-aakhirati hum ghaafilun muuqaalka adduunyada yaqaana aakhirana arrimaheeda qaflad bay kaga sugay ka noocaasi markuu Ilaahay hortaago Ilaahay sortaaga rabbi waxa uu leeyahay laqad kunta fi ghaflatin min hada فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قفلت باد كجا جرتي مانتا indhaha ku baxsan maanta waa taa indhaha lagu jeexay waxa lagu diyaariyay ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا dadka qaafiliinta ah ana akhira rumaysteen xusuusteen kuwaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba ka dhageysan yoomkan yoom sahlan maaha maalinkaas magacyada kala duwan oo quraanku leeyahay markaad raacdo waxaad arkaysaa iyadoo konton magac uu leeyahay quraanka dhexdiisa asmaada iyo magacyada badan waxay sheegayaan culayska maalinkaas uu leeyahay 115 meelood baa Ilaahay quraanka uu ku soo qaaday si maalinka la inoo xusuusiyo 7 suuradood oo quraanka kamid ah ayuu qiyaamuhu magac u yahay ajiiba way idan markaa waxaynu ku soo ururinaynaa adduunka waa ka shaqaysanaynaa wixii inagala gudban waa yeelaynaa ummadaheenu si aan cid kale ugu baahan horumar baan sameeynaynaa laakiin waa inaynu xusuusnaa maalinka sidiisa waxa la yiraahdaa wixii kugu adag ma ilowdi waxa kugu adag hadda ku buuxsan tahay baa inta tukanaysa iyo inta sii socota iyo inta fadhidaba aad xusuusanto marka maalinkaasi hadduu markaynu halkan joogno inagu adag yahayna de waynu hawlgalaynaa haddaynu ilownana sidaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu warramay kuwaas ay dadku noqonayaan idan markaa waxaynu xusuusinaynaa qiyaamaha inaynu diyaar garowno oo aynu amal fallo si aynu abaalmarin in cajabisan maalintaas aynu ku faraxna aynu helo اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونشره ونوره وبركته وهداه اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة